hawlaha arlada haddi lagugu aamino ummadda uu shaqeeyo adeega laga dhigo hawlaha arlada haddi lagugu aamino ummadda uu shaqeeyo adeega laga dhigo ay furan idinkuma arkaysid ehela sheego ay furan idinkuma arkaysid ila adeerko bismillahi raxmaani raxiim kusoo dhowaada shabakada solarportal.com ee baarista iyo arrimaha bulshada. magacaygu waa cabdinaasir ismaaciil. sidaa la socotaan tan iyo xilligii uu qabsaday waddanka maraykanka madaxweyne Trump waxaa la arkay in Soomaali aad u far badan laga soo tarxilay waddanka USA ama Maraykanka. dhalinyaradaas oo isugu jiray qaar waddanka si magangeliyo siyaasado weydiisay ama qaxooti iyo kuwa la sheegay in ay dembiyo ka galeen. dhalinyaradii ugu badnayd ee lasoo dhoofiyey hal mar waxay ahaayeen dad ku dhow ilaa iyo 100 iyagoo laga soo dejiyey magaalada Muqdisho. qaarkood waxay ku jireen xabsiyada waddanka Maraykanka muddo u dhaxaysa 5 bil ilaa iyo 3 sano. iminka bilaha soo socda waxaa kaloo la soo masaafurin doonaa dhalinyaro kale oo Soomaali oo isla xabsiyada Maraykanka ku jirta, dhalinyaro, odayaal, gabdho iyo wiilal. shabakada solarportal.com oo baaritaan aad u dheer ku samaysay ayaa waxay soo ogaatay waxyaabo badan iyo eedo loo soo jeediyey safiirka Soomaaliya u fadhiya magaalada Washington ee cariga Maraykanka Mr. Ahmed Ciise Cawad iyo Consul General ama konsulka oo la yiraahdo Mr. Tabit. dhalinyarada waxay ku eedeen in safaaradda Soomaaliya ee Washington ay gabi ahaan mas'uul ka tahay burburinta mustaqbalka dhalinyarada iyo inay xabsi waqti badan ay ku jiraan isla markaana waddankii loo xiliyo. waxay shabakada fursad u heshay in dhalinyaro aad u far badan la hadasho. waxaan qadka telefoonka si toos ah ugu wareysanay wiil ka mid ah wiilasha Soomaaliyeed ee ku jira xabsiyada waddanka Maraykanka. wiilkan Soomaaliyeed oo aan kala hadalnay xabsi ku yaala stateka Alabama ayaa ka hadlay arrimo dhowr oo qusaysa sida loo xiray dadka ku jira iyo kaalinta safaaradda Soomaaliya ee magaalada Washington ay ka geysatay. bal dhageysi waxaan. assalaamu calaykum. ma maqlaysaa? calaykum assalaam. aad ma ku maqlaya. bal magaca saddexan ii sheeg. aniga walaalahay ayuu cabdixamed lagaa. ayuu marka waxaad joogtaa waddanka Maraykanka isla markaana xabsiga ku jirta Soomaa. walaal. imisa bilood ama sanad ayaa xiran tahay? iyo hadda hal sano ayaan ku xirnay meesha. marka ma waxaad tahay qof waddanka dembi ka galay mise waxaad qoladan hadda waddanka ka soo gashay baan ahay oo xadka Mexico ka soo gulisay. dhankee ka soo gashay? xadka Mexico ka soo galay gobolka Texas. Texas ka soo gashay. marka hal sano xiran tahay wax dembi haba yaraatay waddanka Maraykanka gashina ma jirto. maya wax dembi kama jirin aan ahayn inaan shalay darro kusoo galay shalcigana dee naftaan loo gushiyey ma garan. qaxootinimo marka imisa Soomaali ayaa ku tihiin xabsiga ku jirtaan? ya brother. imisa Soomaali ayaa ku tihiin xabsiga ku jirtaan? Soomaali baan ku nahay waxaan ku nahay Soomaalida ilaa 40 iyo dhowr baan nahay ma garat. awal 6 baan nahay dhowr Soomaali la qaaday January marka Southern State ama koonfurta waddanka Maraykanka xabsiga kamid ayaa ku jirtaan Soomaa? gobolada koonfurta xilligan joognaa. marka safaaradda Soomaaliya ee Washington wax gacan qabad ah ma idin siisay arrimahan ku xiran iyagoo ka mas'uula Soomaalida waddanka Maraykanka? wani horta meesha noogu daran oo laga soo daray waa dhinaca safaaradda Soomaaliya oo dadka Soomaalida ay soo geli jireen ilaa 91kii ay soo gelayeen. markii soo galaan dadka miyo sagaashan beri baan usii deyn jiray. marka safaaraddan markii la furay bishii March 2016 bay dowladda Maraykanka heshiis la gashay in dadka ay ka celin doonto ma garan. dadka Soomaalida marka wixii ka dambeeyey xilligaa lama sii deynin. haddii la sii daayana xabad inta badan waa loo waqtay. waxay safaaradda yaratay waxa baan noo socda waddankii baan ku celinaynaa. iyo safiirku waaga wuxuu heshiiska markuu la galay daraafada guddoomiyey uu sameeyey. markii dambe uu u suurageli waday inuu dadka hal mar wada qaado.
kadib wuxuu nimanku yiri doorashan ku jirnaa inta doorashada aan ka baxno si doorashada ka soo jiitay markii wadankan Trump uu qabsaday iyo bilaabay inuu marka dadka si toos u liposayo magaalada qof ayuu ugu hormariyay oo qaaday haddana wuxuu sheegayaa inuu lixdan kale u qaadayo bishan March ee soo aadan magaalada waxaan rabay inaan ku weydiiyo inta badan waxaa la isku dhex wadaa baraha social media iyo website-yada idaacadaha iyo TV-yada Soomaalida in arrimahan oo laakiin weli aan la xaqiijin sababtoo qofka lama doonayo in la eedo in safiirka cawad iyo shakhsi consular-ka ah safaaradda Washington oo Mr. Tabit la yiraahdo ay maaragtay arrimahan xoog ku leeyihiin qaarka Mr. Tabit oo la yiri xabsiyo qaarkood waa tegay meelo qaarkood wuxuu ka soo hadlay isagoo video conference ah marka arrimo la idinku qasbay ma jirtaa wax saxiix la yiri ama waddanka ku laabanaysa ma dhibaayo soo gaaray ortodooda Tabit la yiraahdo waa maray xabsiyada inuu Tabit consular kuma sheegi kara waa in dowladda Mareykanka la shaqeeya askari uu yahay ma buu malaynaya dowladda Mareykanka la shaqeeya in safiir Soomaaliyeed ama consul ka shaqeeya ama mas'uul magac Soomaaliyeed sheeganaya maaha in matali karana maaha waa in qeyr mas'uula oo dadka aad u matqana Soomaalida u liiday ninka markuu hadalka isku yar qabtaana wuxuu leeyahay askarigu yaranayo ninkan dhaafiyo dhahaya iga xaya markii la yiraahdo inuu soo xorda wadankii amni ma aha meesha dhibaatadan ka soo arnay baartaan inuu ay soo xorda askari uu leeyahay askar buu yaranayo wuxuu leeyahay ninkan dhaafiyo wuxuu sheegay ma qaane marka ninkaas nin mas'uuliyad Soomaaliyeed matalaya ma ahay waa naqarna waa ninka draft documentiyada soo sameeyay hadda sameeya wax oo mataqaanaa wuxuu sheegay wuxuu leeyahay askarta isaga uu sheegaya uu leeyahay ama maanta aan la celinayaa ama bilba kadib aan la celiyo ama samad kadib aan la celiyo kuwiina la celiyo baa tiin ma garad marka laakiin waxa inta uu leeyahay hadda ka laabataan baa idin dhaantay inta waqti kadib leedeen qasab waan celinayna waddanka waan celinayna Soomaaliya waa nabad Soomaaliya marka dhahay nabad ma ahana meesha dhibaataan kaga soo arnay waxa askar buu yaranay xilay ninka dhagaan meesha iga dhaafiya qodob kale igu yaraa oo ma garad marka haddaad tirahdaan Soomaali ma nihin ka waran maxay ku xaqiijinayna Soomaaliya tihiin wax ay Soomaalinimada inay xaqiijiyaan ka daayay dad Ethiopian iyo Kenyan oo Soomaaliya ku hadlay bay qaadayaan draft document sameeyaan ma garad marka saxiixa ma qasab baa mise maaragtay idinka doorbiday oo yiri intaan xabsi ku jiri lahaa wadankii oo halis ahaya inaan ku laabtaa la yaqaata horta meeshaan xabsi doorbiday male sidoo kale xabsi wadankii cid ku laabanaysa male saxa ku ahaatee warqadan waa warqad khasaba de marka lagu yimaado lagu yiraahdo ayaa saxiix warqadan hadii kale waxa weeye meesha ku jiraysa waa waxaan jabaada ma ogtahay midda labaad hadda askartan Mareykanka oo noo sheegeen waxay dhaheen waxa warqado saxiix kala baahan qasab ay ku celinayna ma garad marka warqad saxiix marka hore iska hadda saxiix oo isla soo dhaafay sheekada bayna dad ku celinayaan ma garad marka hadda maxaad filaysaan ma in bisha Maarso sidaan maqalnay soo socda doo la yiraahdo in wadankii la idinku celiyaad filaysaan mise in weli aad ka qaadataan raxfaan ama bilaa ka qaadataan horta dadku hadda xaaladda marka dadku iska baraarugeen badan loo riyo waxa shaqada ilaa dadkaadeen nimankaana waxay sheegayaan badaniyo waxa soo hadda meeshan ku hartay mala xilliga wadankii baan la celinayaa kaliya rajo waxaan ka leenahay darajada muslimiin hadda islaamada inaan ku sanaa diinka ku sanaa maaha hawshan ku jirnaa inaan ka quusanaa maaha rajo waxaan ka qabnaa dowladda Soomaaliya inay arrintaas ka diido inay darantay alaabta hadda wadanka awlaadda ka jirta dowladii ma awood dhaqaale ma ay dadku xakamayso amniga ku soo dadka dhalinyarada ay soo abuurto inay dowladaha ka codsateen mataqaanaa waqti la siiyay inta wadanka ay ka qabanayso inta ka horeysana dadkeeda aan la soo celin aan ka rajaynaynaa waana arrinta u fudud haddii dowladda intaa laga helana dowladda Mareykanku sharci waxa uu leedahay qofkii haddii draft document aan safaaradda ku sameeyay wadankiisa uu ka cawdo inuu qofka ceshado inay siidayso sharciga waajib weeye waana sharcigooda qaba dastuur kama sarreyso madaxweynaha la doortay leeyahay Trump la yiraahdo Trump dastuur kama sarreeyo oo maxkamadda way ku dhagan sharciga Mareykankuna wuxuu qabaa qofka haddii wadankiisa aan safaaradda ay diido oo inay qaato ama wadanku uu ka cawdo inuu dadkiisa la laabto intaan lagu khasbin marka waxaad leedahay safaaradda Soomaaliya gacan weyn ayay ku leedahay haddii arrimahan ay faraha la soo galeen ama ay ka aamus lahayd Mareykanka oo ah wadan weyn oo sharci ka jira dib ay ku ahaan lahayd in Soomaalida uu celiyo
boqol ma celiyeen boqol muusa celiyeen mana celin karo sharciga umale dad uusan daraafo document u haynin ama uusan safaaradooda uusan la shaqeynin inuu celiyo xaqba umale yeelan karo mana celinayo waayo sanadkan hadda 17kii iyo 16kii bay bilowday 2015 markii ka horreeyay Soomaaliya waxa way cid ma jirto ma jirtahay marka safiirka haddii aan ka dhex galo safiirka iyo konsulku waxay leeyihiin annagu shaqo kuma lihin arrimahan waa arrimo Mareykanka iyo u dhaxaysa Soomaalida kale arrintaas ma wax baa ka jira isleeda wax ka jira habeeraatay ma jiraan wax ka jira ma jiraan iyagaaba safaaradda dadka ku diray iyagaaba nagu diray dadka Mareykanka iyagaaba nagu diray oo dadkan kiisaskooda waa xumaadeen waxay ka soo carareen dhiba ma jirto wadankii waa noo iyagaaba nagu sii diraya mataqaanaayo oo nagu sii shiday oo dadkan nagaa dukumentiyada u sameynayna wadankooda ku celiya marka sideedana door uga qaadan kareen waxaan ugu baaqayaa go-aanka iyo xiniyaha ay ku qaateen inay anaga nagu celiyaan oo dowladda Mareykanka u sheegaan in wadankii nagu celinayaan dadka Soomaaliyeed ma ugu sheegaan maxay beenta u sheegayaan oo meediyaha wala laabanaya ku hayaan anagu waxba ku door kuma leeyin way ku leeyihiin afcabina nagu sheegeen afcabina dowladda Mareykanka u sheegeen dukumentiyada heshiisyada la galeen waa haynaa waxay sheegteen in wadankii amni yahay inay ku celinayaan dadkooda waxaan ku weydiiyey ma rag dhalinyaraadkan kaliya mise gabdho Soomaaliyeed baa xabsiyada ku jira iyo caruur Soomaaliyeed wallahi caruur ma jirto laakiin dhalinyaro iyo dad odayaal waaweyn baan isugu jirnaa ma garata dad waaweyn odayaal oo sonkor iyo dhiig kar iyo xanuunyo badan qabaa baa meesha ku jira nin oo ku tacadisan oo ku dhibaataysan waxaana waxa uu leeyahay ninka cunug yar ee kaadin yiraahdo qofka sheeganaya iyo safiirkan axmed cawle leeyahay oo qeyr mas-uul weeye أنا عيالك في حفظي في عسكر أمريكا كثير نحكي إذ وكان حيعيد وطقانيا ملأ وحنا كشرية وحنا مطقانا وسلية ولكن متويتو اللي ولا هي الدولة تساوي مطقانا وكثيرين نايم كلام شرعية وحنا كاتو وحنا عمر بان كذا يجينا كل حين خمسية إن شاء الله الله بصنا حنا عمر نوع كلام وحنا بس أوكي waxaan ugu maqalay ugu dambeyn in Mr. Thabit la filayo sida laga sheegay warbaahinta inuu ka mid noqdo mas'uul dhanka maaragtay dawladda cusub ee farmaajo dhalatay arrintaas maxay u arkaan dadka xabsiyada ku jira aad baan uga xumaanay Thabit Cabdi Axmed Thabit maxamed Cabdi Maxamed waa nin qaraab wadaag laha Xasan Sheekh Maxamuud bariga Xasan uu yimid madaxtooyada u dhiibay madaxtooyada hadduu dhiibay shaqadiisa kasoo baxay ma ahayne dee waa ninkii tawleeyeyba in shabaab ay gasho madaxtooyada oo amniga madaxweynaha ay khatar geliso taa wuxuu ku barwatay isagii mataqaanaaye raggii kale madaxtooyada joogay wixii fiisooyin iyo mataqaanaaye minxooyin wadanka madaxtooyada rasho inuu gato oo qaab corruption oo madaxtooyada uga dhex gato isagoo madaxtooyada marka dhibaatada ka geystay oo saa ugu fashilmay waa Xasan Sheekh qaraabanimo uu ka eegay oo uu door biday inuu dhibkiisa iska fogeeyo balse uu dawladda ka timid ahaado oo qunsul ka soo dhigay hadda Xasan kama uusan fikrin dhibkii asagoo u geystay oo madaxtooyada ka geystay inuu u geysan karo dad shacab oo masaakiin oo meel ku xiran hase ahaatee dhibkii lagu laga jibaaray waxa weeye umad 90 qof hadda gaaraysa uu celiyey in ka badanna waa uu hadda qorsheynaya inuu celiyo waxay doonaan baha ahaadaan ninkaas miyahow safaaradana wuxuu ka dhigay meel makhaayada oo askarta Mareykanka iyo mataqaanaa dadka mas-uuliyiinta Mareykanku ayba iska fariisaan oo ku shaaheeyaan markaa maanta wacda askar Mareykanka qofka talada ka qabtay u dhow oo la jooga safaaradii marka wuxuu ka dhigay meel makhaayada oo dadka Mareykanka iyo mataqaanaa qolyaha ajaanibta ay shay rabaan ka yeelaan safaaradii wuu dilay wuu karaamaliday dadkii Soomaaliyeedna aad buu u liiday wuxuu ka dhigay waxaan jirin oo waxba ka ahayn hore madaxtooyadii uu soo burburiyey maantana wuxuu rabaa inuu mataqaanaa xukunka la qabto waa wax aan aad u qaribsanay aad ula yaabnay maalin dhaweydna waa nala soo hadlay wuxuuna noo sheegay inuu dadka dhan wada celinayo hadda waan ka warhaynaa waa naloo sheegay in isna madaxtooyadu joogo isleeyahay madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo xilkaal madaxweynuhu waa madaxweyne daacada waa madaxweyne musuqmaasuq la-aana waa madaxweyne dadkiisa jecel waxaan rajeynaynaa inuu shaksiyaadkii ka haray dawladii hore ee fadhiidka ahayd ee Xasan Sheekh shaksiyaadkii ka haray dawladii musuqmaasuq bilowday ee Xasan Sheekh inuu soo dhaweysan oo naftiisa iyo nafta Soomaaliyeed uusan ku aaminin oo soo darajada xilka Soomaaliyeed uusan ku aaminin taa bedelkeeda hadduu qaadi karo ama xilka uu ka qaadi karana uu ku sameeyo waxaan cadeynaynaa Thabit iyo ninka halkan joogaba inay laba musuqmaasuq yihiin inay laba damiir laawiyaal yihiin inay hore dambi dadka iyo dalkaba uga galeen inaanu soo dhaweysan waxaa iyaga lamida iska taa iyaga inuuna mataqaanaa ku abaalmariyo inuu xarig maxkamada la istaago hadduusa awoodin oo dawladdiisu aysan awood u lahayna inuu ugu yaraan xilka ka qaado
una yihahdo niman yahow waa nili soomaalidu wayn ka dirigtay dadka kala fursad ayaan rajeynaynaa insha allah walaal aad ayaad umahadsan tahay insha allah arrimahan waxaan gaadsiinayaa meel walba oo awoodooda ay gaadhsan tahay iyagana waxaan fursad siin doonaa insha allah inay ka jawaabaan waxyaabaha lagu soo eeday arrimahan way jiraan idinkana dhanka kalena waxaan la xiriirinaa Arizona Legal Department oo yiri Soomaali xabsi ku jira haddii aad ogaataan la dhoofin rabo noo soo sheega injunction ayaan ka qaadanaynaa ama appeal yar oo waxaan ka qaadan doonaa racfaan ah arrintaasna waa anagoo badan oo asxaab ayaan ku jirnaa waxaan rajeynaynaa si wanaagsan ilaahay arrimihiina khayr ha ka dhigo dadka xanuunsan ilaahay caafiyo dhammaantiin waa idin salaamaya طبعا waxaanu siinaynaa fursad safiirka iyo konsulka inay kaga soo jawaabaan email hore aan u dirnayn kama aysan jawaabin insha Allah arintan laga fadhiisan maayo dhalinyaro kale ayaa jirta ku nool wadanka Soomaaliya oo la soo dhoofiyay oo iminka dawladda Soomaaliya iyo United Nationka u gudbiyay dacwooyinka dhan qaabka iyo sida looga soo masaafuriyay wadanka Mareykanka waad mahadsantihiin ilaa iyo kulanti dambe